Saaxiibayaal, lesson-kan maanta waxaan ku baran doonaa sida kombiyuutarka looga beddelo Windows-ga isla markaana loogu shubo new Windows cusub. Waa sida kombiyuutarka looga beddelo operating system-ka markaa ku jira isla markaana loogu shubo new operating system. Waa mid ka mid ah cilladaha ama inta badan farsamooyinka lagu sameeyo kombiyuutarka si looga beddelo kombiyuutarka Windows-ka. Okay, waxaan samayn doonaa step-ka koowaad inaan kombiyuutarka gashano flashta iyo qaabka loo diyaariyo iyo qaabka bootable looga dhigo. YouTube-keena waxaa ku jira video ka hadlaya sida flashta loo diyaariyo oo Windows-ka loogu shubo. Okay, next step kombiyuutarkan waxaan gashan doonaa power cable-kan gashan doonaa si kombiyuutarka uu charger-ka u qaato inta Windows-ka uu ku socdo. Okay, waxaan doonaynaa Windows-kan inaan kombiyuutarka ka beddelno isla markaana aan ku shubno new Windows cusub. Okay, step-ka koowaad waxaan samayn doonaa inaan kombiyuutarkeena restart u dirno. Waxaan la qabanaynaa button-ka Alt iyo button-ka F4. Okay, marka waxaa inoo soo baxaya in kombiyuutarkeena restart loo diro. Waxaan qabanaynaa button-ka R baan qabanaynaa si aan restart ugu dirno. Button-ka R baan qabanaynaa, button-ka R. Markaan qabano waxaan leenahay keyboard-keena enter baan leenahay. Okay, waxaan baran doonaa maanta sida kombiyuutarka looga beddelo Windows-ka. Okay, waxaan la dhici doonaa marka uu demo F9 baa la dhacaynaa F9 baa la dhacaynaa keyboard waxaan la dhacaynaa F9 ayaa la dhacaynaa. Okay, markuu qoraalka inoo soo qabto ayaan ka deenaynaa. Okay, qoraalka markuu inoo soo qabto ayaan ka deenaynaa. Okay, halkan waxaan ka soo qabsanaynaa flashdeena marka ay diyaarsan tahay kombiyuutarka waa inuu saa u soo qabtaa. Okay, si aan flashdeena u doorano waxaan dooran doonaa isticmaali doonaa falaaraha falaaraha midda down-ka ee keyboard-ka ayaan isticmaali doonaa. Okay, hoos ayaan soo degaynaa. Hoos markaan usoo degno waxaan leenahay enter baan leenahay enter. Okay, kadib wuxuu inoo soo qabsan doonaa flashdeenii uu inoogu jiray new Windows. So Windows 10 baa inoogu jira. Windows 10 professional baa inoogu jira. Saaxiibayaal, lesson-kan waxaa ku baran doontaan qaabka kombiyuutarka looga beddelo Windows-ka isla markaana loogu shubo new Windows cusub haddii aan la idmo. Okay, wuxuu inoo soo qaban doonaa flashdeena ayuu inoo soo qabanayaa oo diyaarsan oo kombiyuutarka uu ku jiro oo ay ku jirto flashtii Windows-ka cusbaa aan rabnay aan ku duubno. Okay, halkan ayuu ina keeni doonaa. Okay, waxyaabahan muuska ayaan markaa isticmaalaynaa. Muuska ayaa inoo shaqeynaya. Okay, halkan waxaan ku weydiinayaa luqadda oo kale iyo time and currency-ga oo kale. Intaa hore waxaa leedahay next baa leedahay. Then hadda wuxuu bilaabayaa install now in kombiyuutarka hadda uu ku shubo new Windows cusub ku shubo. Install now baa leenahay. Okay, setup-ka ayuu hadda bilaabayaa marka. Setup is starting. Hadda wuxuu bilaabayaa inuu kombiyuutarka uu ku shubo oo ku setup gareeyo Windows-ka kugu jiro flashdaada. Okay, waa very simple weeye. Qaabka yar baa loogu shubaa. Haddii aad u baahan tahay kombiyuutarka in Windows-ka aad ka beddeshid oo ku shubtid new Windows cusub. Okay, halkan oo kale waxaan samayn doonaa marka halkan yimaado daaqadan Windows setup-ku yimaado. Halkan oo kale waxaan samayn doonaa tick baan saaraynaa. Halkaa tick baan saaraynaa. Tick markaan saarno waxaan leenahay next baan leenahay next. Okay, labadan button baa muhiim ah. Okay, upgrade-ku waxa weeye inaad kombiyuutarkaaga ku xidho internet-ka dabeetana aad Windows-ka saan oo kale upgrade ku samayso oo kale. Windows 7 aa kugu jiray 10 oo kale. Okay, custom-kuna waxa weeye inaad ku shubto fresh Windows cusub. Isaga ayaan dooranay. Okay, waxaan samayn doonaa midka GB-giisu aadka u badan yahay ayaan ku duubi doonaa Windows-ka haddii aan la idmo. So GB-giisu wuxuu badan yahay 57.5 kaasaa ugu badan. Kaasaan ku duubaynaa marka waa kii sida ahaa kaasaan ku duubaynaa. Partitionada kale waad iska delete kartaa oo delete baad dhihi kartaa waad iska dayn kartaa. Okay, kaasaan ku duubaynaa 57.5 ka ah kaasaan ku duubaynaa. Then waxaan leenahay next baan leenahay. Then waxaan leenahay okay baan leenahay. Okay, hadda wuxuu bilaabayaa inuu kombiyuutarka uu ku shubo Windows-ka cusub uu ku shubo. Wuxuu ku shubayaa faylashii Windows-ka uu watay oo dhan ayuu ku shubayaa. Copying Windows files oo dhan, getting files ready for installation-kii oo dhan, installation features-kii, updates-kii, waxyaabahaas oo dhan buu ku shubayaa. Intaa ayuu dhammayn doonaa. Okay, waxaan ka soo gudubnay step-kii koowaad oo ahaa collection information. Xogo yar ayuu inoo weydiinayay su'aalo yar oo ka jawaabnay. Step-kii labaad waan ku jirnaa installing Windows-ka qaabka loogu duubo kombiyuutarka ama qaabka loogu shubo. Okay, hadda ayuu bilaabay. Hal ayuu ka bilaabay.
wuu dhammayn doonaa marka wuu dhammayn doonaa. Okay, marka stebyada ku xiga ayaan eegi doonaa qaabka uu mataqaanaa uu u sameeyo Windows installing uu u sameeyo.